السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبنا قال soo dhawaada qodobka lixaad ha ku badan dalabaadka ninkaaga noqo mid waaqi la socota oo kalba xaalada dhaqaale ee ninka ku sugan yahay. Dumarka qaar ka mid ah ayaa wax warba u haynin duruufta ninkeeda oo kaliya waxa u muuqata waxa ay doonayso iyo baahideeda. Waxa lagaga baahan yahay inaad tahay mid leh qanaaco oo raali ku ah wixii Ilaahay siiyay. Waxaa laga wariyay Abi Saciid inuu yiri in nabiga Ilaahay naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee uu qudbeeyay oo khudbada dheereeyay kuna sheegay adduun iyo aakhiraba. Wuxuu sheegay oo kale arrimihii ugu horreeyay ee sabab u noqota in reer bani Israa'iil la halaago, in gabadha faqiirka ahi ay ninkeeda ku kalifi jirtay inuu soo gado dhar iyo agab la mid ah waxa ay haweeneyda qaniga ah ninkeeda ka dalbato. Inkastoo aanay gabadha u habboonayn dalab badani, haddana arrinku wuxuu sii daran yahay marka ninka dhaqaalihiisu liito, taasi oo ninka ku keenta niyad jab. Markasta oo ay xaaskiisa ka dalbato waxa uu awoodi waayaba, gabadha waxaa laga yaabaa inay saaxiibadeed ama jeerkeeda alab ku aragto, isla markiiba ay ninkeeda ka dalbato iyadoo aan isweydiin in ninkeedu awoodo iyo inaanu awoodin. Gabadha wanaagsan ee xishmadda lihi ma aha mid dalab badan, waa mid leh qanaaco oo kalba wixii ninkeedu siiyo ku qanacda. Wixii lagama maarmaan loogu baahan yahayna si xigmad leh u xasuusisa ninkeeda una weydiisata. Marka gabadha muslimadda ahi ogow in dalabka badan uu ninkaaga kugu dhibsanayo, kuna arkayo gabar baahi badan oo ku dadaalaysa raaligelinta nafteeda ee aan duruufta ninkeeda waxba kala socon, taasina ay xumaynayso xiriirka adiga iyo odaygaada idin dhexeeya. Qodobka toddobaad, xifdi sirta ninkaada. Ninkaaga ha joogo ama ha maqnaadee, xifdi sirtiisa guud ahaan iyo gaar ahaanba. Weligaana ha uu sheegin cid kale, gaar ahaan sirta la xidhiidha xiriirkiina gogasha. Nabigu wuxuu yidhi naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, inna man ashara annaasi cinda Allah manzilatu yowma alqiyaamah الرجل يفضي إلى امرأتي وتفضي إليه ثم ينشر سرها. dadka waxa uu shar badan alla agtiisa maalinta qiyaamaha nin xaaskiisa la jamaacay oo iyaduna la jamaacday, kadibna wixii dhex maray fidinaya. Weligaaga ceebtiisa ha uu sheegin mid dhow iyo midka dheerba. Taaliidkeeda dadka hortiisa ka sheeg wanaagiisa iyo sharaftiisa, taasi adigana sharaf bay kuu tahay. Haddiise ay dadku kugu arkaan inaad ninkaaga ceebihiisa sheegayso, taasi adigana ceeb bay kugu tahay. Dadkan waxay kugu xamanayaan inaad tahay naag doqon ah oo shakhsiyadeedu liidato. Marka iska jir arrinta, weligaa ha ku dagmin. Dumarka inta badan waxay sirta ninkeeda sheegaan marka khilaaf yimaado oo calaysan tahay oo ay u sheegtaa saaxiibadeed ama qarabadeeda. Laakiinse gabadhaasi ha ogaato in dad badan oo ay moodayso inay naseexo u yihiin oo istilaada wax ku qarso inay cadow ku yihiin oo ay ceebtaada fidinayaan. Iska dhaaf inay mushkiladaada xaliyaane, taasi oo marka khilaafku dhammaado ay ka murugan doonto. Soomaalidu waxay tidhaahdaa doqoni meel lagu murmay in lagu kala tagay bay moodaa. Ogow khilaafku inuu yahay shay dabiici ah oo markasta dhici kara, laakiin waxaa ogtaa in khilaafka la maarayn karo oo uu dhammaan karo. Haddiise aad aaminto in meesha lagu kala tagayo, ogow inaad qaldan tahay. Waxaa laga yaabaa inuu kugu sababo inaadan waxba tudhan. Gabadha muslimadda ahi nafteeda ha ku kalsoonaato oo ha ku dadaasho inay iyadu khilaafka xalliso inta ay karto oo aanay dibadda u saarin. Maxaa yeelay haddii khilaafku dibadda u baxo, waxaa soo gala shaydaan oo sida loo xallin lahaa way sii adkaataa. Gabadha muslimadda ahi iska ilaali arrinta oo noqo qabri wax lagu aaso, oo weligaa arrin ku saabsan qoyskaaga iyo ninkaaga laga maqlin. Sida ayaad adduun iyo aakhiro sharaf ku helaysaa insha Allah, ninkaagana ku kasban kartaa. Qodobka sideedaad, ninkaaga dabeecadiisa baro. Ninkaaga dabeecadiisa baro. Muxuu jecel yahay? Muxuu ka xanaaqaa? Maxaa dhiba? Taasi waxay kaa caawinaysaa inaad ka fogaato waxa uu dhibsanayo, kuna dadaasho wixii uu jecel yahay. Dumarka qaarkood weligood ma karaan iyaga oo sanado badan ninkooda la jooga inay haddana dabeecadiisa bartaan, oo had iyo jeer waxay ku celcelinaysaa wixii ninkeeda dhibayay. Gabadha muslimadda ah waa inay noqotaa gabadh aqli u saaxiiba oo daraaso ku samaysa ninkeeda dabeecadiisa, oo isweydiisa ninkaaga maxaa dhibaya, kadibna ogaata oo ka fogaata. Haddana isweydiisa muxuu jecel yahay, kadibna u samaysa oo ku raali gelisa wuxuu jecel yahay. Marka uu ninkaaga ku arko inaad wixii uu jeclaana samaynayso, wixii dhibayana ka daynayso, taasi qalbigiisa ayaad ku kasbanaysaa. Qodobka sagaalaad, ku dadaal cusboonaysiinta. Sida guriga oo aad qaabku alaabta u taal bedesho, cuntada oo aad kariso nooc cusub, dharka nooc cusub aad xirato. Inaad xaalad kaliya ku sugnaato waxay keenaysaa in ninkaaga kaa xiiso dhaco.
marka isbeddelku wuxuu cusboonaysiinayaa jacaylka uu ninkaagu kuu qabo. Arrinta u daymo la'aan waa qodob muhiim ah oo ka mid ah arrimaha aad ku kasban karto ninkaada.